بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو فتحية وجوغا مانتا لفعيسة تاريخ تاعي سقالية طبعا بشي اللحاد لبكم يو لباتني لحية لباتن وحا لجوغا odayaasha lafacisa haldoorka marka isagaan iska yabar horta kow assalaamu calaykum waraxmatullah magacaaga oo saddexan noo sheeg magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cumar muuse waxaa ku dhashay lafaciise oo ku magac dheer jeex ya da'daada da'daydu waa ilaa 60 weeyaan jeex waxaa nooga warantaa anigu og inaad haldoorka lafaciisa tahay reerka aad iska anigu waxaan ahay nin gala buusiya gaar ahaanna nin reediyaa baan ahay oo ku dhashay lafaciise 1965 marka waxaa halkaa nooga muuqataa inuu reerku ilaa Djibouti Zeyla ilaa halkan uu degan yahay reerku waxaa nooga warantaa jeex taariikhda inta kusoo joogtay lafaciise waxaan soo joogay oo aan soo joogay waxaanu madaxa la kacay Hayle Silaase markii la afgabiyey ninkii dargiga loola jeeday Markiisu Hayle Maryam loola jeeday markuu waddanka qabsaday uu yidhi la odhan jiray mareeg laaraash dhulka ninkii qotaan la wareegayay dadkii qalaadlaha lagala wareegay anigu kolkaasaan madaxa la kaco taariikh ahaan waan garanaya halkan beertan intina waa beertaadi soo maa waa beertaydii aad imika aad dibiyada iyo aan ku dhaqo waxaad nooga warantaa waktigaa dergiga dhibaatooyinkii jiray ee laga soo dhibaatooyinkii jiray markaan kaaga waran fadhiyo waxa weeyaan magaaladan lafaciise arkayso dhifays baa saa ugu meersanaa koorayaasheeda 3 meelood baa laga bixi jiray intiyeedaba meeli waxay ahayd xaggan galbeed baa looga soo baxayo xagga xeergeel baa looga bixi jiray meelina waxay ahayd xagga dharwaajaa looga bixi jiray meelina xagga awbaree ahayd meelina xagga jigjiga 4 meelood baa laga bixi jiray inta kale dhifays baa ku wareegsanaa beertayda aad arkayso dhabarkeega dhifayskii ciidamada dargigu ay gelayeen hay markaa ay gelayeen baa ahaa magaalada gudaha ku jirtay magaalada laga baxay marka saasaan u garanaya marxaba dhibaatooyinka ininka nagu hayeen shicib ahaan dhibaatooyinkay nagu hayeen dargigaas walaal wax la koobi kara maaha wuxuu ahaa dad cadhaysan oo la jebiyey 1977 si xun loo jebiyey soo noqday markaa dawladdii la odhan jiray ruuska iyo kuuba oo markaa taageerayay ayaa waxay ku waaniyeen inaan dadka la taabanin hase ahaatee dadka haddii meel wax ka dhacaan waa la layn jiray waa qof lagama tegi jiray haddii miina qaraxdo dadka waa la layn jiray waxba lama bixin jirin wax alla wixii lala kulmo ama loo eegayo ama xoolo wax qoristaba maaha wax alla wixii la arkaba waa la diisiyo waa ma u joogtay berigii la xasuuqay qaybtan xerigee markaa dhaafay makaayil dheeraha markii la xasuuqay anigu waxaan ku noolaa lafaciise waxa weeyaan walaal ciidamadu way baxeen jabhad baa la kulantay waa la isa soo laayey magaalada lagu soo noqday saasaa lagu xasuuqay jeex waxaad nooga warantaa intaad joogtay xilma ka qabatay waktigii dambe ee soo hagaagaysay soomaaliduna ay halkan bilaabi in laga qadariyo walaal xornimada kolka la yidhaaho soomaalidu kolkii tireegu aad sababo qabsadeen ama tireegaasi markay qabsanayeen baa ilaa ay qabsadeenba
waan taagnaa waxaan ka mid ahaa maamuladii u horreeyey ee magacaabeen baan ka mid ahaa waxaan ka mid ahaa sayladda lafaciisa xoolaha lagu iibiyo ninkii bilaabay ee bileeyey ee dhisay baan ahaa ya xafiiskan dawladda hoose ku shaqayso ninkii dhisay ee jiingada saaray baan ahaa ee ka shaqaynayey maamulkii markaa joogay ahaa waxaan ka soo shaqeeyey qabareega 6 sano aan ka soo shaqeeyey awbarana waxaan ka shaqeeyey waa 6 sano oo kale ka shaqeeyey oo aan maamul guddiga fulinta iyo ka soo ahaa saasaan maamulada uga soo shaqeeyey oo uga soo shaqeeyey berigii dhexda la joogay maamulka Soomaalida inta badnay cabdi ilay waxmaad ka ahayd mise shicibada anigu waqtigii ka horreeyey waqtiga cabdi waqtigan ka baxay bay ahayd anigu markii cabdirashiid duulana uu joogayey ee cabdirashiid duulana meesha laga saaray nin cabdi jibriil oo ciise ah ayaa madaxweyne ka noqday dhulka kolkaa cabdi jibriilna waan shaqaynayay aniga oo shaqeeya waxaa noogu yimid annaga degmada awbare ninkii loolan jiray khadar oo ina duulana ka horreeyey annagoo maamula awbaru noogu yimid marka isaga waxaa waddanka la talin jiray nin amakaari oo gabarwaax la yihahda ka talin jiray oo isaga anugu wuxuu lahaa maamulka maayihi ninka maamulka waddanka ka waa ninkan u lahaa ee maamul laynoo ogol yahay ma jiro ninkan maamulka dhabtiisii waa kan buu lahaa wuxuu noo sheegayuuna dareensiinayey inaanay soomaalidu waxba ka ahayn waxaan hayr wareysanaya magaaladu xoog bay u ballaaray imika ilaa waxaan u socdaa xaafadaha shanaad oo dhinaca lixaad beetan soomaaha dukaad wad halkaa ka buubata halkaa ilaa iyo cidhibkaa kale la fadhiisa halkaasi dhigay maxaa ugu wacan ballacan soo magaalada la fadhiisa maamulkii oo horreeyey ee balaanka u sameeyey mastar balaanka lagu shaqeeyey magaalada ku degtay maamulkii dejiyey baan ahay ee sameeyey anigoo halkan jooga nin walaalkaya oo injineer ah iyo nin kale oo baawar cabdallah oo la socday ismaan cumar muuse la yidhahdaa kayga walaalaha nahay ani axmed cumar muuse ahay ayaa noo yimiday abshir baa la abshir futuulaa la nimankaasaa noo yimiday magaaladani waxay u baahan tahay belaan markaa waxay yidhahdeen haddaad raashinka iyaga dabartiin annagaa ka shaqaynayna oo waddooyinka dhagaxa dhigayna kolka hore xabashi waa soo kaxaysanay xabashigii yoobkii horreeyey wuxuu naga qaaday 2,000 oo riyaalo markaa aan dhulkaba oolin ayuu la weydiiyey wuxuu dhigay 3 dhagax buu halkaa magaalada kooreega ka soo dhigay dhagaxii labaad 3 dhagax markuu dhigay ayuu yidhi 2,000 oo riyaal keena hawshuu istaagtay annagoo dhaqaalo markaa haynin kadib waxaa yimid ninkaa walaalkaya oo injineer ahayo xamarkii yimid ayaa noo yimiday nimankii baa qabtay magaalada dhagaxa dhigay waddooyinka hagaajiyey sidaasay bilaanka ku heshay masar balaankii u horreeyey ee la dhigo ee kaatadii la keenay iyagaa dhagaxa noo dhigay inamadaasaa dhigay magaaladu markaan dibinay markaa bilaankii la dhigay dhagaxa la gaadhsiiyey hore ilaa koone aduu 2 kiiloomitr markii la gaadhsiiyey damba 2 kiiloomitr ayaan dibintii ku bilowday macnaha gurigii dadka intaan iskugu yeedhnay waxaan nidhi qof guri weydiisa karta qofka waddada ay marto qof gurigiisa wax ka magdhow ka dooni karaa ma jiro sidii baa lagu dibiyey saasay magaalada walaal ku gubtay oo masar balaanka markaa qofkii gurigiisii oo damaanad lamar ku helay qof kastaa wuu iibsaday wuuna dhistay waxaa igu maqaala ah reeraha ugu badan marka soo dhaafo jaarsada iyo garigan way degan magaalada dad kale may gobolada kale ka yimid magaalada markaas rasmi ahaan oo reer ma ku yeesheen mid degan walaal deegaankeena
geriya jaarsa way islaayaan had iyo jeer dagaal baa dhex mara qaxootigooba halkan ku soo qixi jiray labadooduba way degan yihiin waxa kale degan gadabuursigu halkan dee ma wada lahayn oo kama dhaxayn laakiin waxa gadabuursigii oo dhanba santar bay u noqotay waad arkaysaa magaalada gadabuursi qola ka maqan iyo geri iyo jaaso qola ka maqani ma jirto walaal magaalada saabaa lagu soo degay insha allahu imkana waxa weeyaan maanta kolkaad eegto magaaladii waxay degan tahay dhamba 5 kilomitir bay degan tahay dhambal 5 kilomitir bay degan tahay waa dhinac kasta waa 5 kilomitir kasta 5 kilomitir bay degan tahay iyo balaakay u gaarsiin yahay wax yar u baan daboolmay intii kale aw 3 kilomitir uu daboolmay walaal way hal su'aalan doonaya inaan aago waqtigan ma ku jiro anigu shaahid u haabo doorashadan cusub sababa ka timid dadka kale xisbiga iyo dadka kale madax bannaan iyo xisbiyada kale ay ka tartamayeen oo bilow ahay oo fiican inkastoo iska jirto dalkaloolyo doorashadaasi adigu sidee kula muuqatay walaal doorashadu horta xisbiyo badan inay ka soo qayb galaan way ku saxan tahay hase yeeshee waxaan oran lahaa ninka geela badan leh inuu hasha keliya ku jirta soocaan uma jeclayn ya waxa weeyaan annagu halkaa goob doorasho ayaa naga tegi jiray fataraad halkii goob doorasho waxaa laga dhigay macaari anigu taa ma jeclaysan waxaan ruuxaan ku sheego ninka geela badan leh inuu kiisa aw qayb ka dhiga iyay ahayd aan usaan qabin ya hase ahaato iminka inanka soo galay waa inaan ku kalsoonahay oo etoobiyana yaqaana dhaqanka etoobiyana aad u yaqaan weye waanu hambalyaynayaa bixitaanka uu soo baxay dadka gadabuursigoo dhanna codkiisa way siiyeen waad mahadsan tahay magaaladu imise goob doorashay leedahay magaaladan faciisa imise goob doorashay leedahay waxay leedahay walaal afar goob doorasho weye afar goob doorasho goob doorasho waa iskuulkii ku taala iskuulkaa dhigay hoose yaa sheekh muuse goob doorashada waxay ku taallaa halka calaawadiin meesha loo dhisay xoolaha waa labo ayay ku taallaa ya midna waxay ku taallaa harquun saddex soo maaha midna waxay ku taallaa hoonaha magaalada cambaaray ku taallaa marka afartaa goob doorashay magaaladu leedahay walaal waxaan leeyahay weliba way ku yar tahay baan leeyahay weliba taasaan su-aashaan ku xigtay aan ku weydiinay intii dhaweyd aan joogay halkii goob doorashaba waa 1500 marka la isku daro afartaa goob doorasho waxay noqonaysaa 6 kun cod magaalada la faciise ugu yaraan 20 kun way degan intii kale ee codadkii kale ee halkee mareen walaal horta komishinka iga garanaya wixii cod lagu rido oo komishinka ayaa yaqaana nambarka ay diiwaangeliyeen iyo nambarka codeeye iyagaa la weydiin way soo bixi doontaa marka laakiin waxaan ku ogahay dadka la faciisa gala kolka ciidda la tukanayo anigu waxaan soo maray iyadoo aanan 200 ku tukan laakiin maanta kolka la eego miskiin kiiloomitir ku dhow 100 iyo 200 ayaa buuxsamatay kolka ciidda la isku yidhi waxaa halkaa ka garan kartaa bableeshka tukanayaa intuu leegyahay dee ya markaa magaalo way yar tahay lagu tilmaami kara maaha marka goob doorashadu way nagu yar yihiin baa leedahay anigu aad iyo aad sidaasoo weliba goob doorashadu aad ugu yar yihiin la faciise xildhibaankeenu wuxuu kusoo baxaa 360 kun sida aan igu maqaalina dastuurka 100 xildhibaan ahaaday weeyaan sidaa miyayna ahayn inay laba xildhibaan ugu yaraan ay ka maqan yihiin federaalka walaal waxaan ku leeyahay horta waxa weeyaan soomaalida kolkaad eegto horta dadkii u waaweynaa ayaa ugu dhib badan 4 qolo ay soomaalida ugu dhib badan 4 qolo
afartaa qolo waxaad moodaa in ay gacan bidixayni jirto dhankay doonayaan baa jiraan ama Jabuuti ha joogo oo dawladda laga sameeyo ama Itoobiya ha joogo ama Soomaaliya ha joogo ama Somaliland ha joogo waxaad moodaa innaga dadkiina hogaamin lahaa ee dadka u talin lahaa ee qabiilkana ka tirtiri lahaa inay iyaguba beerayaan baad moodaa جزاك الله جاحو waxaad iga warantaa ma xumo mustaqbalku oo anigu birgi cabdigeena waan joogay dawladana waan joogay cabdir wanaha ka yahay way istaamaan inkastoo wax badan ay dhiman yihiin waxaan rajaynaynaa ta kale ee soo socota la dhisi doono inay ka sii wanaagsanaan doonto kulli ma xumo rajadu dhalinyartan aadka u batay la ficiisay iyo awbarraba degmada mustaqbalkooda iskuulka hoos bay ugu soo dhacaan bal kelmad ka dhig waxa weeyaan ardayda Itoobiya way badan tahay ardayda Itoobiya macnaha magaca Soomaaliyeed inagoo oo laynagu siiyo koota laynagu siiyo mooyaane qayb ahaan macnaha laynoo siiyo mooyaane kolka la eego facilitieskana waa laynaga badan yahay walaalo magaalooyin bay joogaan dadka kale oo macal practical bay helayaan waxbarashadooda markaas saa daraaddeed waxaa dhibaatada u badan ee ku daadanayna keenaysa innagu dugsiyadeena sare iminka kor bay u soo kaceen oo sidii hore maaha laakiin practicalka ku yar baad moodaa saa daraaddeed dadka daadanaya waxay u badan yihiin Soomaali marka waxaan odhan lahaa dawladda maamulkeegu hataa ka codsato si annaga wixina koota inooga dhigi lahaa wax ka gaar oo ku soo baxno qayb macna inagu iska leenahay Soomaalida in laga dhigaan odhan lahaa intaa waa ku codsan lahaa waad maasan tahay maanta waxaan kusoo gabagabaynaynaa barashadii aan jeex haldoorka la ficiisa aan baranaynay iyo deegaanka nooga warramayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu